timaha haddaysan kuu bixinin oo mar walba ay yihiin jugjug meeshaada joog oo aad rabtid timahaaga inay dhaqsi kuugu baxaan. Haddaba isla ogow alaabtaas yartaa weelka inoogu jirto waa nafaqo yar oo fudud oo timaha dhaqsi bixinayso weliba si degdeg ah. Nafaqadan sidoo kale tinta way nafaqeynaysaa oo nafaqaysiinaysaa, tintana way jilcinaysaa, timaha way qurxinaysaa, way israacinaysaa. maasha Allah hadda lagama sheekeyn karo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. asxaabta ku xiran channelkeena Najax Qurxinta soo dhawaada walaalahayga meel walba aad joogtiin dhamaantiin ku soo dhawaada channelkeena Najax Qurxinta uga barateen waxyaabaha dabiiciga ah oo la isku qurxiyo. waa walaashin hadini sida 10 kale cusub ee walaalahayga maanta inoo wada sidaatay video ku soo aragteen qaybta ugu horeysa video ku soo daawateen wixii hadal ah hadda qaybta ugu horeysa muuqaalka ayaan ku soo koobay walaalahayga marka hadalka iyo warka in kuuma badinaaye nafaqadan dheelitiranka oo timaha lagu dayactirayo oo timaha dhaqsida bixinayso ayaan hadda maanta ka soo tuuranayna insha Allah markii igala bogta video soo socdo waxyaabaynu ka hagaajinayno iyo sida aan sameeyno waan ku mahadsantiin hadda mar walba sida quruxda badan ay ila socotiin please hadii aad muuqaalka daawatiin inoo like gareeya videoga bismillaah nafaqadii fudeed ayaan hadda hagaajinayna walaalahayga marka hore waxaan soo qaatay waxa weelka waxa inoogu jiro waxa waaye waa bariis cadde aan soo kariyay ayaa weelka inoogu jiro waa bariis cadde aan soo kariyay qof kasta dabcan bariis cadde waa karin karaya u maleeyna marka waxaas hadda adoo karinaysid iyo waxaas ku qabatid muuqaalka hadda inagu dheeraanayo marka sidaas awgeeda u soo kariyay sidoo kale waxaad kale u baahan tahay baamiyo ayaad u baahan tahay waa baamiyo asagana aan soo kariyay baamiyahan dhowr jeer anoo karinayo waan soo galiyay biyo yar iyo baamiya dabka isku saaray marka xoogaa isku soo karkarto saasoo hadda kuugu bislaado baamiyaha marka baamiyaha inoo diyaarsana iyo bariiska inoo diyaarsana ayaan isku daray baamiyaha iyo bariiska hadda waan isku soo shiidayaa marka aan isku soo shiido ayaan isku soo noqonaynaa waxaan ku shiidayaa makiinada cabitaanka ayaan ku soo shiidayaa wax biyo kuma dari doono waayo dhacaan alaabtan way leedahay markii aan soo shiido ayaan hadda isku soo noqonaynaa insha Allah alaabtii hadda markii aan isku soo shiiday waxaan soo qaaday weel yar ayaan soo qaaday weelkaas yar ayaan ku shubayaa sida u jeedin maasha Allah sidaas quruxda badan ayay hadda inoogu soo baxday wax meeritaan alaabtan mar rabto waayo qashin dhan ma lahan nadiif waaye marka hadda alaabtii markii aan soo shiidanay sidaas quruxda badan ayay inoogu soo baxday maasha Allah smoothka lagama sheekeyn karo hadda marka haatan waxaan ku darsanaynaa alaab kale yar oo fudud ayaan ku darsanaynaa insha Allah waxaan ku darsanaynaa saliid qumbo ayaan ku darayaa saliid qumbaha meesha aniga ka isticmaalayo saliid saytuun saliid looska saliidaha caadiga iyo saliid ah heli kartid ayaad ku bedelan kartaa insha Allah marka saliidii alaabtii ayaan hadana isku qasaya oo aan si fiican isku dhexgelinaya alaabta muddo yar oo kooban hadda isticmaashid waxa waaye tintaada waad ka dareemaysaa hadda jajab ka cabanaysaa hadda bixitaan laan ka cabanaysaa hadda timaha ku qalalayihiin waxaas oo dhan hadda way ka baahi tiraysaa insha Allah alaabtii hadda markii aan isku soo qasay oo aan saliida aan ku soo qasay si fiican isku soo dhexgeliyay ugu dambeyntii sidaas quruxda badan ayay inoogu soo baxday nafaqadeeni sidaas ay diyaar inoogu tahay haatan oo kaliya waxu baahan tahay in jag la isku siiyo oo la isticmaalo marka sidoo isticmaalaysaa marka hore waxa sameynaysaa alaabtaada diyaarsanaysaa kadibna hadda tinta ayaad marsanaysaa tinta marka hore shanle markaad shilaysid kadib kala bar leenba marmari kadibna timaha duuduub bacda madaxa soo qaado gali hal saac ilaa hal saac bar adiga inta ajaanis heli kartid ku joog oo timaha alaabtan ku hay oo nafaqadan ku huuri kadibna marka intaas ku joogtid ka dhaq markii aad ka dhaqdid timaha qallaji kadibna saliide isbuuci hadaa 2 maalin ka isticmaashid kugu filan maasha Allah hadda waad ku faa'iideysaa tinta alaabta marka koowaad aad isticmaashid ayaad batintaada ka dareemaysaa hadday timaha ku googo'ayeen hadday timaha ku ragaas ku ahaayeen sidoo kale hadday tinta ku bixinin waxaas oo dhan way ka caawinaysaa oo way ka baahi tiraysaa timahana dhaqsi ayay bixinaysaa waliba si degdeg ah muhiimadu alaabtan waa inaad joogtaysaa muddo hal bil ah hadii aad si toos ah u wadid hubaal inay tintaada dhabarka ka degan doonto insha Allah marka ila soo tijaabiyo igala faa'iideysta hadda videogeeni maanta intaas ayaan ku soo afmeeraynaa waa inoo kulantay dambe oo xiiso leh anigoo inii sida video kale cusub walaalahayga videogaana sii share gareeya si ay walaalo badan uga faa'iideystaan channelka hadii aad ku cusubtaana soo dhawow minanka waa channelka inoo subscribe gare inoo like gare hadii aad hore inoo la joogto waa ku mahadsantahay mar walba sida quruxda badan ay inoo la joogtid muuqaalka hadii aad daawatidna like ta naga ilaawinina waayo like ta waa dhiirigelinteena koowaad